Kumuu ahaa Maxamed Bakeeri madaxii militariga Iiraan ee ku naf waayay duqeymihii Israa'iil ay ka geysatay Iiraan. Israa'iil ayaa subaxnimadii Jimcaha weerartay xarumo badan oo militariga Iiraan iyo xarumaha nukliyeerka Iiraan, sidoo kale guryo ay degan yihiin saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka Iiraan. Tehraan oo lagu yaqiinay inay degan yihiin saraakiisha sarsare ee amniga, taasi oo gobolka u jiiday dagaal u buuxa oo u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda. Weeraradaasi waxaa lagu dilay xubno badan oo ka tirsan ciidamada Iiraan. Waxaa ka mid ah Genaraal Maxamed Bakeeri, madaxa guud ee ciidamada qalabka sida Iiraan iyo sargaalka ugu sarreeya militariga dalka. Bakeeri waxa uu ku dhashay Maxamed Husseini Afsardi 1960kii. Doorkiisa hadda waxa uu kormeeray labada ciidan ee ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee loo soo gaabiyo IRGC iyo inta kale ee militariga dalka, isaga oo sidoo kale hubinaya isku dubbaridka u dhexeeya hubkaasi kala duwan iyo hay'adaha amniga dalka. Waxaa la sheegay in uu xirfad ciidan oo heer sare ah la lahaa IRGC. Si kastaba ha ahaatee, waxyar ayaa laga ogyahay isaga oo ka baxsan diiwaankiisa adeegiisa, guulihiisa waxbarasho iyo cunaqabatayn badan oo ay ku soo rogeen hay'ado caalami ah. Reza Akbari, oo ah maamulaha barnaamijka Bariga Dhexe ee Waqooyiga Afrika, Machadka Dagaalka iyo Warbixinada Nabadda, ayaa sheegay in badan oo ka mid ah sirdoonnada darajada sare leh iyo saraakiisha militariga Iiraan waxay u muuqdaan in ay yihiin kuwo sirdoon ah. Bakeeri wuxuu ku biiray IRGC 1980kii, sanad kadib kacaankii Iiraan, iyo isla sanadkaas dagaalkii u dhexeeyay Iiraan iyo Ciraaq. Dagaalkaasi oo socday 8 sannadood ayaa waxaa ku dhintay boqolaalo kun oo qof oo labada dhinac ah, iyadoo Iiraan ay soo gaartay khasaarihii ugu weynaa ay la kulanto intii ay la dagaalamaysay waddan.